السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وايد السلام دماتينا مeel ka soo caalamka joogtaan. Maanta waxaynu qaadanaynaa cashir aad iyo aad u muhiim ah ka soo ciwaankiisu yahay pneumonia. Pneumonia sidaan wada ogsoonahay waa infection of the lung parenchyma, waa inflammation of the lungs. Haddaba infection of lung parenchyma ku dhaca waxa muhiim ah inaan ogaano parenchyma maxay tahay. Parenchyma markaynu ka hadlayno every organ wuxuu leeyahay two parts, functional party and structural party. Functional party ayaa waxa loo yaqaan parenchyma. Haddaba lung parenchyma ayaa wuxuu ku dhacaa pneumonia ku dhacdaa functional party alveolar, functional party of the lungs waa alveoli. Haddaba markaynu ka hadlayno functional party waxaa jira supporting structures. Supporting structures kaas waxa loo yaqaan stroma. Supporting structures kaasna waxa loo yaqaan stroma. Stroma ayaa loo yaqaan. Haddaba pneumonia markaynu ka hadlayno, pneumonia waa infection ama inflammation kaasi oo ku dhaca lungska ama one lobe ku dhaco one lobe wax ka badan ku dhaco. Marka laga hadlayo pathogenesis habka uu dhaco waxaa jira siyaabo badan oo dhaco. Sidaan ogsoonahay lungigeenu shaqadiisu waxay tahay in aan hawada ka qaadano kana soo saarno. Waa gaseous exchange, oxygen inaan qaadano, carbon dioxide soo saarno. That is function of the lung, our lungs. Markay sidaas tahay marka aynu qaadanayno hawo kaliya haati ma aha waxaan qaadanayno only air. Waxaa jira different particles, dust, all microorganisms, different another agents, waxaasoo dhan ayaynu helgaraynayna oo aynu qaadanayna. Laakiinse kaliya haati ma waxaynu qaadan air. That's why different agents kaas iyo different microorganisms kaas aynu qaadanayno neefteena noo raacayo ayaa waxay keeni karaan infection ay keeni karaan. Markaynu ka hadlayno infection marka pneumonia markaynu ka hadlayno predisposing factors markaynu ka hadlayno waxyaabo kala duwan oo wax jira predisposing factors ah. Haddaba predisposing factors markaynu ka hadlayno waxa koowaad ka hadli doona waa impaired defense mechanism. Impaired defense mechanism waxaan ku jeednaa in mechanismkii ama defense-gii difaaci jirkeenu uu impair yahay oo hooseeyo. Daas waxyaabihii difaaci lahaa oo hoos u dhaco. Waxyaabaha difaaca lungskeena maxaa kamid ah cough reflex. Physiological ahaan coughku physiological ahaan waa defense mechanism oo suu defense mechanism yahay marka aan wax qaadano particles aan waxyaabo saas markaynu qaadano waxaan ka helna waxa aan qaadano waxa sameynaa cough reflex si wixii particleski galay uu jirkeenu iska soo saaro. Marka waxa la sameeyaa qufac kadibna qufacaas wuxuu kafkaasi wuxuu inoo faa'iido leeyahay inaan soo saarno wixii aan qaadanay. Laakiin waxyaabaha impaired defense mechanism waxa la loss of cough reflex jiro hadii qufacaas ama waxyaabahan qaadano cough reflex uu la jirin waxyaabo badan oo waxa jira loss of cough reflex uu jiro oo cudurka predisposing factors waxyaabaha kamid ah keeni kara pneumonia ka mid tahay maadaama cough reflex jiro. Waxyaabaha cough reflex ka hoos u dhigi kara maxaa kamid ah waxa kamid ah waxyaabo cough reflex hoos u dhigi kara qofka inuu coma ku jiro, unconscious inuu yahay qofkaasi oo xiskiisu maqan yahay uusan joogin. That is risky to inhale more dusty, more microorganisms waxyaabo fara badan oo noqo ayuu halisay qofka marka uu coma ku jiro. Also sidoo kaleete waxyaabo maadaama uu waxaas liqina cough reflex ma jiro qofkii wax qof uu sameynayay ma jirto maadaama qofkii coma ku jiro. Also sidoo kaleete anesthesia qofkii hadii uu suuxsan yahay oo anesthesia la siiyay kaasina wax cough reflex uu sameeyay ma jirto. Daas wuxuu risk ugu jira in microorganisms uu qaatay uu jirkeena ku fidi karo ama uu sii nagaadi karo iyo ugu jira halis. Also sidoo kaleete waxyaabo loss of cough reflex ka keeni kara waxa kamid ah in qofkii nerve problem yimaado. Nerve problems inuu yimaado daas way kaasa kamid ah in cough reflex ka soo dhaco. waxyaabaha kale ee impaired defense mechanism keeni kara mucociliary movement
anatomical markaynu ku noqono waxaan ogsoonahay inay leenahay ciliar inaynu leenahay ciliarkaasi in ay tahay shaqadiisu in wixii dust particleska iyo wixii microorganismska wixii aan foreign agentska jirkeena soo gala in ciliarkaasi waa thin hair oo wax yarar oo soo celinaya inay soo saaraan wixii foreign bodyga jirkeena soo galay ay soo saaraan oo dibadda u soo saaraan. haddaba waxyaabaha keeni kara impaired defense mechanismka kamid oo ciliar movementiga joojin kara ama ciliarka dhaawici kara waxaa kamid ah smoking. qofku hadduu long time smoking cabayay maxaa sameysmaa in distraction ku sameeyo ciliar movementigii ama ciliarkii ay meesha ka baxdo. taasina waxay halis u tahay in la waayo wax soo saara waxyaabaha foreign-ka ee jirkeena gala wax soo saari waayo. also sidoo kale toxic waxyaaba toxic ah oo qofkaasi qaato in maxay ay burburinayaan distraction ku sameeyaan ciliarkii. also sidoo hot gases oo kaleete hawada kulul in qaadanayno oo kaleete. sidoo kale viral diseases baa jira xanuuno viral ah oo iyaguna keenay in ay burburiyaan. also sidoo kale genetics baa jira genetics ayaa keeni kara oo ah in geneticskaasi ay keenaan in ciliarkii oo genetical ahaan problem yimaado sida immotile ciliar syndrome oo kaleeto ku dhaco. immotile ciliar syndrome motile inay sameyn weydaba ciliarkii oo kaleeto. accumulation of secretion baa jira sida fibrin oo kaleeto in accumulation of secretion oo kaleeto waxyaasa. also sidoo kaleeto macrophages baa jira oo isaguna keeni kara in dhibaato ku keeni karo mucociliar movementigii macrophage ahaan. sidoo kaleeto waxyaabaha predisposing factorska kamid ah waxaa kamid ah decreased host resistance in resistancegii hostigu ama humanisku ay host resistancegii uu decrease noqdo intii uu dul qaadan lahaa ama resistancegu waxaan u heli lahaa in uu decrease hor dhaco. decreased host resistance baa kamid ah. also sidoo kaleeto waxyaabaha risky factorska ah markaan ku hadalno risky factorska waxyaabaha risky factorska ah keeni kara pneumoniada waxaa kamid ah in qofku all 65 years more than 65 years qofku hadduu jiro risky factors buu ku yahay. sidoo kaleete malnutrition qofku hadduu yahay. also sidoo kaleete immunocompromised patients oo kaleete aad very risky ugu yihiin oo iyaguna risky ugu yihiin like HIV qof kale HIV risk qof dad kale oo kale waa dad immunocompromised ah. that's why difaacu hoos u liitaa. that's why waxay chance badan ama u yihiin opportunity disease oo kaleete in xanuuno badan ay develop gareeyaan. markaynu ka hadalno etiology of pneumonia ama causes of pneumonia. pneumoniada markaynu ka hadlayno waxa loo qeybiyaa different parts iyo sida aanu loo cause gareeyo causeskeedu way kala duwan yihiin. waxaanu ka hadlaynaa community acquired acute pneumonia means community acquired pneumonia. community acquired pneumonia waxa la yiraahdaa waa pneumoniada aad ka soo qaado meelaha bulshada ah like guryaha, homeska, schoolska, marketska, meelaha public placeska, meelaha la isugu imaado, meelahaas oo dhan community acquired pneumonia laga soo qaado ayaa la yiraahdaa meelaha kale ka develop gareyso. community acquired acute pneumonia markaynu ka hadalno waxyaabaha sababi kara streptococcus pneumonia sababi karta, sidoo kale influenza sababi karta, Marxella catarrhalis waa sababi karta. also waxaa jirta another microorganisms sababi kara balse laakiinse soo yar koobnay. it's very important inaad ka xasuusato intaad ka xasuusto waa muhiim. in kasi badan inaad ka sii xasuusto oo text boxka markaad baadhana that's very important aad iyo aad muhiim tahay. that's community acquired acute pneumonia waxyaabaha sababa. community acquired atypical pneumonia. community acquired atypical pneumonia waxyaabaha sababa iyaguna waxaa kamid ah community acquired atypical pneumonia markaan leenahay initial markii horeete ma aysan jirin waxyaabo sida loogu baaro ama lagu sii kala saaro pneumonia, laakiin markii dambe late waxaa la ogaaday waxyaabo fara badan. sidaa darteed community acquired atypical pneumonia waxyaabaha iyagu sababi kara waxaa kamid ah ma aysan jirin bakteeriyooyinkan faraha badan leh imika la helay ma aysan jirin markii hore laakiin dib baa laga ogaaday. haddaba waxaa sababi kara iyagana mycoplasma pneumonia sababi kara, chlamydia species baa sababi karta, sidoo kaleete coxiella burnetii ayaa sababi karta. also sidoo kaleete waxaa jira kuwa kale oo sababi karta laakiinse
internet ka xusnaata muhiima kuwa kale haddii aad baadho oo tagasta buuga dib aad ku noqoto dinaad eegtana is very important weeyaan iyagu. markaynu ka hadalno hospital acquired pneumonia waxaa la sababi kara hospital acquired pneumonia waxa la yiraahdaa hospital acquired pneumonia waa inta aad hospitalka joogto pneumonia develop garto qofkii hospitalka la keenay other cases kale loo keenay ama wax kale u imiday hospitalka ama wax kale loo soo dhigo hayay ama xanuun kale ayaa qofkaas u imid hospitalka that's why 48 hours kadib haddii uu develop gareeyo pneumonia that's hospital acquired pneumonia yaallo qofkii for example wuxuu yimid wax kale gaas baa ku kacay oo la soo wax kale u yimiday dhakhtarka that's 48 hours ayuu wuxuu ku develop gareeyo pneumonia that's waxa la odhanayaa hospital acquired pneumonia that's gram negative rodis waxyaaba soo kara gram negative rodis Enterobacterium Klebsiella sidoo kale E. coli waxyaaba soo kara Pseudomonas species Staphylococcus aureus soo kara most common ah waxyaabahaas oo dhan soo kara hospital acquired pneumonia. Aspiration pneumonia waxa la yiraahdaa waa aspiration pneumonia in waxa liqdo for example matag cuntadii vomiting other cause waxyaabahaas oo dhan oo aad liqdo oo loo baahnay marka fluids ku qaadatay halkii laga baahnaa esophagus-ka inay maraan trachea neefta inay maraan oo tagaan lungs-keeni ama other brulantina liqdo oo ay tagaan halkii looga baahnaa inay tagaan halkaas laga baahnaa ayaa la yiraahdaa aspiration pneumonia waxay soo bacteriology baa sababi karta fusobacterias loo yaqaano Peptus Streptococcus waxyaabahaas oo dhan ayaa sababi kara and other else baa sababi karta. sidoo kale waxaa jirta chronic pneumonia markaynu ka hadalno waa pneumonia chronic at least 6 weeks. Chronic pneumonia waa nocardia sababi karta actinomyces baa sababi karta mycobacteria TB and atypical mycobacteria ma sababi karta iyadana necrotizing pneumonia iyadu wax weeye necrotizing pneumonia waa necrotizing means necrosis waa deaths like TB oo kale pneumonia qofka TB oo ka dib loo karo taas oo kale anaerobic bacteria ayaa ku sababi karta. Also sidoo kale waxaa jira pneumonia in the immunocompromised host qofka immunocompromised ka like HIV ka kale immunocompromised faaciis liito oo hooseeyo pneumonia ayaa jirta kuwaas waxa sababi kara waa cytomegalovirus cytomegalovirus pneumocystis jirovia mycobacterium ovum intracellular invasive aspergillosis invasive candidiasis waxaas oo dhan ayaa sababi kara in ay dhacdo immunocompromised patients. waxaynu ka hadlaynaa hadaba clinical feature of pneumonia markaynu ka hadlayno clinical featureskeeda waa common feature of pneumonia waxa kamid ah cough, fever, chills, malaise, vomiting, diarrhea, sometimes sputum production. Severe pneumonia haday noqoto qofku wuxuu leeyahay COPD ama shortness of breathing, dyspnea ama hyperventilation, tachycardia also soo taqaano qofka lagu arki karo. Waxa jira there is some feature of consolidation marka examination oo sameeyso consolidation is bajira sida dullness on percussion marka qofkii percussion sameyn rabto inaad percussion sameeyso percussionkaas dullness buu noqonaya. Also sidoo kale increase focal formative ki kor buu kacaya qofkii oo kale markaas tiraahdo leh 99 bale also sidoo kale waxa leeyahay 44 ya dib qofkii lagu yiraahdo at the back saasoo kale marka lagu yiraahdo la qabto ila yiraahdo 99 waxaad arkaysaa increase focal formative ki inuu kor u kaco focal formative waxa sidoo kale waxaan ka hadlaynaa sputum production wax lagu kala saaraa sometimes wax lagu kala saaraa which microorganisms causes this pneumonia focal sputum production wax lagu kala saaraa waayo microorganism qaar waxa jira more sputum soo saara oo naturally tabiici ahaan iyagu leeyihiin inay leeyihiin iyagu tick purulent iyagu leeyihiin kamida. markaynu ka hadlayno morphological of pneumonia markaynu ka hadlayno pneumonia waxa loo qabshaa laba pneumonia bronchopneumonia interstitial pneumonia
markaynu ka hadlayno lobar pneumonia markaynu ka hadlayno waa marka uu one lobe effect gareeyay but laakiin another lobe kalete ayna effect gareyn. lobar pneumonia wuxuu leeyahay different stages, 4 stages of lobar pneumonia. first stage waa consolidation ama congestion yalaahda marka radiographical characteristics waa heavy, red and boggy ay leedahay. sidoo kale red hepatization baa leedahay, like red hepatization ku waxa leedahay waa like liver consistency yalaahda oo sidoo kale gray hepatization buu leeyahay oo kamida sidoo kale also resolution baa kamida. That's a stage of lobar pneumonia. bronchopneumonia markaynu ka hadlayno waa patchy, waa in uu effectgareeyo more than one lobe. bronchopneumonia waa inuu effectgareeyo more than one lobes, inuu effectgareeyo ayaa la yiraahdaa bronchopneumonia ama patches. sidoo kale interstitial pneumonia markaynu ka hadlayno waxa weeye interstitial pneumonia markaynu ka hadlayno also sidoo kale bronchopneumonia leeyahay waa inuu effectgareeyo more meelo badan inuu effectgareeyo, laakiin waxay ku kala duwan yihiin. bronchopneumonia only bronchialis ayuu effectgareynaya, laakiin interstitial pneumonia waxa effectgareynaya waa space between the alveoli. waxay ku kala duwan yihiin waa space between the alveoli ayuu effectgareynaya. markaynu ka hadlayno haddaba diagnosis cellular diagnosis kan kale sputumka la eegi doona for gram staining loo sameeyo or culture loo sameeyo, also sidoo kale chest x-ray baa loo sameeyaa oo la eegi doona consolidation kiisu oo loba more than one loba la eegi chest x-ray is very clear diagnosis so also treatment of pneumonia markaynu ka hadlayno sida loo treat gareeyo pneumonia laba loo qabshaa treatment-kiga mild and severe. marka ay mild tahay waxa loo daweynayaa as outpatient oo kale ayaa loo daweynayaa, waxaana la siinayaa oral antibiotics. The choice of drug azithromycin iyo clarithromycin baa kamid ah, amoxicillin baa kamid ah, clarithromycin baa kamid ah. saas waxaas oo dhan baa kamid ah inaad doorato, laakiin aad very important u tahay oo oral antibiotic baa siinaysa markay mild tahay as outpatient oo daweynaysa. haddii ay severe pneumonia tahay markay tahay IV antibiotics baa la siinayaa qofkaas hospitalkana waa la dhigaya. waxyaabaha lagu garto in severe pneumonia tahay severe pneumonia markay tahay respiratory-giisu wuxuu noqon doonaa more than 30. also sidoo kaleete hyperventilation buu yeelan doonaa, sidoo kaleete high grade fever buu yeelan doonaa qofkaasi, sidoo kaleete qofkaasi wuxuu yeelan doonaa vomiting, waxyaaba saas u yeelan doonaa. waxyaabaha lagu garto severe pneumonia. severe pneumonia hadda qofka ku aragto hospitalization dhakhtarka dhigaysa, then IV antibiotics baad siinaysaa. markaynu ka hadlayno prevention, how to prevention in la sameeyo waxaad sameynaysaa inaad qaadato give vaccine of pneumonia. also sidoo kaleete inaad joojiso waxyaaba predisposing factors oo kaleeta smoking inaad joojiso, waxyaaba noocaas oo kaleeta inaad joojiso. haddii qofku malnutrition yahay inaad nutritionkiisa kor soo qaado, waxyaabaha dhan health promotion inaad sameyso aad ka hortagi kartaa. waxaa jira waxyaaba complication different complications baa jira. complicationkaas oo kamid ah iyagu inuu ay metastasis oo fido oo other meelaha kaleeta oo ku fido oo kaleeta sida viral bacteria pneumonia inuu yimaado oo kaleeta virus yimaado oo inuu keeno maxay ahayd shortness of breathing inuu keeni karo qofkaasi, ama dyspnea in qofka naqaska ku dhago, ama alveolar collapse inuu yimaado. alveolar collapse inuu qofka inuu markaa atelectasis inuu qofka iftiimiyo oo alveolar collapse uu sameyn karo. also sidoo kale waxyaaba noocaas oo kaleeta insha Allah cashirkeena maanta intaas waynu uga keen doonaa. intaan ku kulmi doono haddii ay tahay markii ugu horeysan soo booqatay fadlan please subscribe share insha Allah. intaan markii iga kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.